jaamacadda Togdheer University ayaa munaasabad ballaaran ay ku qalin jabinayeen 285 arday oo noqonaysa dufcaddii 11 ee ka aflaxda kulliyadaha kala duwan ee ay bixiso jaamacadda Togdheer University ayaa munaasabad qalin jabin ugu qabatay hoteelka Barkulan ee magaalada Burco waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay musharaxa jagada madaxweynenimo ee xisbiga wadani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro gudoomiyaha xisbiga wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan siyaasi Cabdiqaadir Jirde barasaabka gobolka Togdheer maayirka degmada Burco xildhibaano siyaasiyiin salaadiin waxgarad iyo marti sharaf kale waxaan ugu horeynba ka warbixiyay ardayda maanta ka qalin jabisay jaamacadda Togdheer University gudoomiyaha jaamacadda Togdheer Sheekh Cabdibaasid Cabdinuur Xaaji Siciid munaasabadan aynu maanta ku abaal marinayno ugu xafladeynayna waa dufcaddii 11aad ee ka qalin jabinaysa jaamacadda Togdheer kuwaas oo ka kooban 285 arday oo isugu jira 160 wiilal ah iyo 125 hablaha kuwaas oo ka kooban dhammaan departmentada kala duwan oo 14 oo ka baxa jaamacadda Togdheer mudanayaal iyo marwooyin maadaama ay jaamacadu yihiin halka lagu jaangooyo aragtiyaha iyo mabaadi'da jihaynaya jiritaanka ummad iyo bulsho jaamacadda Togdheer waxay ka mid tahay jaamacadaha ugu faca weyn ee gobolka waxa la aasaasay 2011 waxa ka soo baxay oo ay soo saartay aqoon-yahano tiro badan oo dowr muhiim ah ugu jira dalka iyo qarankaba kuwaas oo hadda ka howlgala shirkadaha dalka laamaha dawliga ah iyo kuwa maxalliga ah oo maanta hortiina jooga markhaatina u tihiin waxaanu ku dadaalnay in sanadba sanadka xiga kor u qaadno manhajka waxbarasho ee jaamacadda Togdheer oo ku salaysan cilmi baarisyo kaas oo ay sal u tahay isbeddello tacliineed oo la hubiyay nidaamkeeda waxbarasho kaas oo abuuri kara fursado ama kanshooyin nololeed annagoo ka duulayna qorshaha cad ee guddida tacliinta sare mar kale waxaan u mahadnaqayaa u hambaliyeynayaa waalidka sida nafuur kale ugu harbaxay hadhiya habeenna u taagnaa hangalinta ubadkoodii iyo dhaayahoodii oo maanta u fadhiya mid ka mid ah farxadahoodii oo ay dhaabadeeyeen waxaan leeyahay waxaad maanta markhaati ka tihiin inuu guulaystay tacabkiinii aad muddada dheer mood iyo maalba ugu hurteen ubadkiinna ilaahayna subxaanahu wa tacaala idinku guuleeyey geesta kale waxaa halkaasi ka hadlay musharaxa jagada madaxweynenimo ee xisbiga wadani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro gudoomiyaha xisbiga wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan siyaasi Cabdiqaadir Jirde qaar ka mid ah ardaydii ka qalin jabisay jaamacadda Togdheer waalidiin barasaabka gobolka Togdheer maayirka degmada Burco siyaasiyiin iyo xildhibaano iyagoo dhammaantood hambalyo u diray ardayda ka aflaxday jaamacadda Togdheer University waxaan soo gaarnay maalinaan in badan sugaynay annaga oo soo dhameynay qayb ka mid ah geedigayagii waxbarasho ugu horeyn waxaan jecelahay inaan u mahadnaqo maamulka iyo macallimiinta jaamacadda Togdheer oo hormuudka u yahay gudoomiyaha jaamacadda Sheekh Cabdibaasid Cabdinuur Xaaji Siciid hormuudka kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda macallimiinta kuwaasi oo ku suntan karti aqoon iyo dadaal horumarineed ee joogtada ah ee ay ardayda uga qabtirayeen waxbarasho tayo leh jaamacaddan Togdheer aniga arday horena way iga baxday imkana qaar baa ku jira kuwa nimanka maqalin jabinaya waxaan u mahadnaqaynaa si gaar ah ugu mahadnaqaynaa anagu magac waalidka ku hadlaya maamulka jaamacadda macallimiinta iyo staafka guud ee jaamacadda gobolka Togdheer waxaan leeyahay runtii waa jaamacadaha maanta ugu faca weyn aqoontana aad iyo aad ugu fiican hambaliyo ardayda macallimiinta cid kasta oo ka soo shaqaysay waalidiinta waxaan ku hambaliyeynayaa munaasabadan qalin jabinta jaamacadda Togdheer waxaan u mahadnaqayaa ninka gudoomiyaha jaamacadda waan idin hambaliyeynayaa quruxda idinka muuqata waalidiin baa idin gelisay iyo macallimiin iyagana waa u mahadnaqaynaa waxaan baan leenahay tayada ardayda hal kordhiyo macallimiinay hal kordhiyo tayada siyaasiyiinta waxaan leeyahay doorashada si wanaagsan oo bilaa naxliya oo wanaagsan loo galo qof walba cid uu codeynaya isaga inta u taallaa oo kaarkiisa waasta laakiin waa inaan ku culoobin doorasha la geliyaa sida uu gudoomiyuhu sheegay
doorashadu xadaafiir badan tahay waqti dheer bay naga qaadatay inaanu dhiraandhirino oo halkan keenno markii dambana ilaahay wuxuu ku guuleeyay beesha iyo odayaasheeda iyo salaadiinteedu inay xalka keenaan si dalku u badbaado xalkiina ilaa maanta uu taagan yahay wax carqaladoon sugaynaa ma jirto wax meel kale inaga yimaado mooyeen ilaahay idinkiina nagu iman mayso carqaladii idinkana waxa la idinka fadhiyaa muwaadiniin baa tihiin idinkaa wax bedela idinkaa wax sare u qaada idinkaa ninka khaldan qabta idinkuna waajibkiina ka soo baxdaan oo ninka ku habboon oo u garataan inuu ku habboon yahay inuu codaysaan ugu horreyn waxaan ku ducaynayaa in ilaahay mustaqbal ifaya oo runtii meel ay ku hagaagaan oo waddanka rajo leh insha allah ay noqoto rajadoodaasna ay noqoto rajo midho dhala jaamacaddani muddadii aan ku jirnay ilaa maanta waa jaamacadaha ugu horreeya baa la odhan karaa gobolka togdheer jaamacaddani dadaal badan waxay gelisay inay soo saarto ardayda ugu qiimaha badanna marka gobolka loo eegayo waxaan kaloo u mahadnaqayaa maamulka jaamacadda togdheer oo tacab badan gelisay midhahan inay soo saarto heerkan soo gaadhsiisay iyagoo isku duuban howlwadeenadooda dhammaantood waxaan leeyahay aad baa u mahadsantihiin waajibkiinnii iyo dheeraadba waa ka soo baxdeen bulshadiina waxa u soo saarteen midho iyo aqoon-yahan laga filayo inay wax ku soo kordhiyaan waxaa kaloo iyagana aan u mahad celinaya waalidkii iyo cid kastoo isgarab taagtay inay heelka soo gaadhaan waxaan marka hore hambalyo u dirayaa maamulka jaamacadda guddoomiye cabdilbaasid iyo dhiimankiisa macallimiinta ardayda qalin jabinaysa waalidiinta ilaa intaa la daba socotay kartida iyo nolosha kala duwan waxaan leeyahay hambalyo 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 anigu ka hadlaya afka guddiga tacliinta sare qaranka waa farxad bay noo tahay waa farxad weyn bay noo tahay weliba gaar ahaan aniga farxad gaara bay iisii tahay maamulka jaamacadda iyo ardayda iyo macallimiinta iyo marjarafta dhammaan salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan qiimo badan kadib waan jeclahay inaan halkan kelmad ka idhaahdo ardayda laakiinse waqtigaan saamaxayn waqtiga dartii baan uga tanaasulaya kelmadaydii musharaxa madaxweynahan u yeedhaya musharax kusoo dhawow farxad weyn bay noo tahay inaanu idinkala qayb galno munaasabadda farxadda ah ee waalidiinta iyo jaamacaddaba aynu halkan isugu keennay ardaydii dhammaysatay waxbarashada ee maanta halkan shahaada lagu siinayey marka hore waxaan hambalyaynayaa ardayda waxaan ilaahay uga baryayaa inay fursad u helaan inay waxbarashadoodana sii wataan ilaa heerka ugu dambeeya haddii ilaahay ka dhigo insha allahu barnaamijka iyaga siyaasiga waa ku jirtaa in muwaadin kasta uu helo waxbarasho bilaasha ilaa jaamacadda gudoomiyaha jaamacadda Togdheer University Sheikh Cabdibaasid Cabdinuur Xaaji Siciid ayaa gudoonsiiyay Dr. Cabdiqaadir Jirde shahaadada ugu sareysa ee Honor Doctorate ee siyaasad wanaagga iyo wadaniyadda gabagabadii waxaa halkaasi shahaado sharaf lagu gudoonsiiyay dhammaan ardaydii maanta ka qalin jabisay jaamacadda Togdheer University Cabdirashiid Timir Home Cable TV Burco